shamuuray soonka nugu dambeys hal maalin boqol door no soo ilmay habe imalsaan way igu baqtinooyina kore waxa on malad ala cid waxaan siisay kisto waxaan siisay moof aabe waadantay aabe ku tar waad 14 cunuga u dhali hal cunuga iga saqistay 10 cunuga ii joogna walaalkan saad roobka banooga aruuro gurigan waxa ku nool familka shamuuray oo dhawaan caan ka noqday barta TikTok-ga 13 caruura oo asigu u dhalay xaaskiisa iyo hooyadiis iyo ilmo la dhashay ayaa halkaani ku nool sida u jeedaan gurigani waa guri jiingado iyo cooshado ka samaysan isla markaana u nugul roobka iyo sidoo kale qoraxda waxay noo sheegeen in gurigani uu ku soo deeyay roobka sidoo kalena aysan xilligan haysan waxay cunaan iyo waxay cabaan intaba hooyada familka oo xaaladooda noogu warbixisay ayaa waxay noo sheegtay in xalay cashadii ay cuneen ay cunto ugu dambeysay ayadana ay u keeneen dad daris ah waxayna sheegeen in ku dhawaad muddo bil ah aysan gacanta ku haynin shamuuray oo ahaa aabbaha familka iidii maalintii ka horeysana uu u soo diray lacag $100 ah kadibna aysan arkin jaan iyo cirib meel uu dhigay ummadda Soomaaliyeed ayay waxay ka codsadeen in la caawiyo shamuuray ayaa wuxuu uu yahay nin dhalinyaro ah oo dhawaan caan ka noqday barta TikTok-ga isla markaana dad badan sidii aaminsan yihiin caanimadiisa ku helay lacag fara badan balse hadda sidaad u jeedaan waxaa ka baahan qoyskiisa oo ku nool gurigan cooshadaha ee jiingada ka samaysan hooyadii shamuuray oo dhawaan warbixinteedu ay qabsatay baraha bulshada ayaa waxay sheegtay inaysan gacan ku haynin shamuuray isla markaana uusan teleefankeeda ka jawaabaynin balse shamuuray ayaa xalay asigoo barta TikTok loo yaqaan leef ugu jira waxa uu sheegay inuu hooyadiis la hadlay una diray inay aado caruurtiisa sida u jeedaan hooyadiis ayaa hadda dhex fadhisa caruurta shamuuray balse way isku baahan yihiin oo waxba iskuma awoodaan hooyada familkan ayaa waxa ay sheegtay inuu ka geeriyooday wiil ayadu ay dhashay oo u shaqayn jiray isla markaana aysan gacanta ku hayn hadda waxay cunaan iyo waxay cabaan sidoo kalena aabihii qoyska asna aan lahaynin sidoo kalena uusan u soo dirin wax biil ah haba yaraatee xaaladeen wallahi malso goob kor xaaladeen xaalad jirta ma ay gacad qabsan daroona ilmay wax siista ma haystan ya ilaahu baanada ku baahanay soo caabe tali jid wixii jooga habeen wabko inaan nolosha shirno wax ma haysan maskiin ala 14 cunuga haysta wax ma haysto waa qalanahay laba mar cunug leeyo soo qali wax aan haysana male gurigaana iskaaga noolna tali jid wixii jirana soo caabiyaan wax ma haysana waxaan ma ilaah gargaar soona inka gargaarni ku sugoyna walaalayaal soo caabiya walaal roob ya goob iso galo roob habeen roob